السلام عليكم ورحمة الله. gabar ayaa waxaa dhacday waxaa guursaday nin ay aad u jecleed. qisadan ayadaa ka sheekeynayso oo ka waramaysaa. waxay tiri ninkii muddo baan isla nooleen, jacayl iyo wanaag iyo farxad baan ku nooleen. muddo yar kadib jacaylkii wuxuu isu bedelay nacayb, dagaal, muran joogto ah ilaa ay xaaladda sii xumaato oo ay kala tagaan. waxay tiri ninkii markaan kala tagnay waxaa dhacday tiri murug zaa'id ah, cabsi oo nimanka dhan aan ka qabo, guurkii dhan inay ka caagto, xanuuno fara badan ayaa ku dhacay, depression, walwal, murug, stress, wax walba isugu yimid. waxay tiri gabar aad u qurux badan la way ahayd, mar walba ninkii arkaba inuu la haasaabo isku dayay ama uu soo doonto reerkeeda yimaado. waxay samaysaa gabadha marka dhammaan nimankii oo dhanba waxay ka qaaday shoog bay ka qaaday. waxaa dhacday muddo markay sidaa ahayd bay waxay tiri waxaan dhageystay suuratulbaqra fadliga leedahay. markiiba waxaan damcay tiri inaan baqra joogtay. waxay tiri suuratulbaqra waxaan akhriyaa maalin kastaba, baan akhrinteedu bilaabay inaan maalin walba akhriyo, nafteedaan kula ballamay inaan subax walba suuratulbaqra akhriyo. muddo markaan waday soo bedeshay, waan soo roonaaday. muddo markaan suuratulbaqra akhrinteeda ku celceliyoon waday waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah waxaan akhriyey 3 jeer oo isku xigta suuratulbaqra akhriyey. 3 jeer oo isku xigta markaan kutubka ka akhriyey suuratulbaqra waxay tiri daal iyo xogaa hurda yara qabatay, waan seexday. anigoo sidaa hurda u sii gelin indhaha isii gelinay baa waxaan arkay tiri lugteeda bidix oo ka soo jeedo tin. intaan qabtay riya ahaan bay ku qabanaysaa, toosna hurdo uguma jirto, dhacdada way maqlaysaa, waa qaylulo yar ay ku jirtaa. tintii bay ka soo jiiday lugta, si u soo jiidaysay cabaar kadib tintii waxaa ku xiranba bahalka loo yaqaano raha ama rakaha ayaa ku xiran. rakihii waa mid gubtay oo madoobaaday oo asaga dhan baaba'san. waxay tiri dhagax baan soo qabtay, waana jiiftaa. dhagax baan soo qabtay tiri dhagaxii baan ku dhuftay oo ku garaacay ilaa uu asaga dhan baaba'o budo noqdo. markuu baaba'ay riyadii waan soo toosay tiri hurdadii baan ka soo kacay. haddaan soo kacay lugtii baa yara xanuunaysaba, haddaan meeshii taabta waa yara xanuunaysaa. xoogaa baan socday, xoogaa markaan socday waxay tiri caadi bay lugtii noqotay. waxay tiri wixii ka dambeeyey xilligaas waxaan dareemay tiri qabow qalbiga ah, deganaansho, farxad. maalmo kadibna nin baa soo doontay, sidii baa lagu guursaday. cabsidii iyo walwalkani waa ka tagtay. suuratulbaqra rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aw kama qaala alayhi salatu wasalam, xadiis buu wuxuu ku yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhduha barakah, qaadashada suuratulbaqra la qaadanayo waa baraka, qofka ku barakoobayo. wa tarkuha xasrah, ka tagisteedana waa shalay. walaa tastatiicuha albatala ay saxra, mana kari karaan qofkii suuratulbaqra akhristay suxarada ma kari karaan. qof wuxuu noqonayaa barakaysan, farxad iyo reereyn ku jira, wax walba isugu toosan yihiin. waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaantiin suuratulbaqra inaad naftiina kula balantaan inaad akhrisaan subax walbaba. qofkaan akhrinteeda garanaynin inuu barto suuratulbaqra, akhrinteeda uu badiyo, sababto oo barakaa ku jirto. gabadhaa waxaa reerkeeda ka baabi'iyey oo murugtaas iyo cabsida geliyey waa waxaa ku jira ee korkeeda ka soo saartay oo rahaas muxuu ahay ku aragtay riyada. jinku noocuu doonuu iska dhigaa, xayawaano isku ekeysiyaan, masas bay iska dhigaan, bahalle iska dhigaan. ilaahay baa qur-aankii akhrinaysay ku gubay oo ku baabi'iyey. riyadaasna bishaaro ahaan bay u aragtay inay wixii xanuunkii haayey iyo dhibkii haayey ka baxeen. suuratulbaqra hadday ugu yar tahay 3 maalmoodba maalin aan ka akhrino walaalayaal, videogana la wadaag. waxaa laga yaabaa qof xanuunsan, qof walwalsan inuu faa'iide u noqoto suuratulbaqra uu joogteeyo, adigana aad ajir ku lahaatid. sheer gareeya walaalayaal. wasalaamatiin. assalaamu calaykum.